Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay go'aanka ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay aad uga xun tahay go'aanka ay gaartay dowladda Kenya ee ah in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi loo leexiyay magaalada Wajir. Dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa arrintani mid siyaasadaysan oo aan u wanaagsanayn xiriirka derisnimo iyo is-afgaradyadii hore ee labada dowlad ka dhexeeyay. Ganacsiga iyo isu socodka labada shacab ayaa lagu yiri qoraalka. Dowladda Federaalka waxay u taagan tahay dhowrista sharafta iyo karaamada ummadda iyo qarannimadeeda, waxayna ugu baaqaysaa dowladda Kenya inay dib u fiiriso tallaabadan culayska ku ah ganacsiga iyo isu socodka labada shacab ee walaalaha ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay xiriir la samayn doontaa hay'adaha ay khusayso arrintan, iyadoo qiimeynaysa tallaabada ku habboon ay qaadayso. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aad uga xun tahay go'aanka ay gaartay dowladda Kenya ee ah duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi oo maanta loo leexiyay magaalada Wajir. Tallaabadaasi oo ay dowladda u aragto mid culays lagu saarayo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka waxay u aragtaa arrintani mid siyaasadaysan oo aan u wanaagsanayn xiriirka derisnimo iyo is-afgaradyadii hore ee labada dowlad u dhexeeyay. Ganacsiga iyo isu socodka labada shacab. Dowladda Federaalka waxay u taagan tahay dhowrista sharafta iyo karaamada ummaddeeda iyo qarannimadeeda, waxayna ugu baaqaysaa dowladda Kenya inay dib uga fiiriso tallaabadan culayska ku ah ganacsiga iyo isu socodka labada shacab ee walaalaha ah. Dowladda Federaalka waxay xiriir la samayn doontaa hay'adaha ay khusayso arrintan, iyadoo qiimeynaysa tallaabada ku habboon ee ay qaadayso. Wabillahi tawfiiq ayaa qoraalkan lagu yiri.